madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanya ayaa hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ka furay shirkii sagaalaad ee suuduwada mucaawinooyinka Soomaaliland. Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socday dawladaha Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka, saraakiil sarsare oo ka tirsan hay'adaha qaramada midoobay, laamaha dawladda ee Soomaaliland, wakiilo matalayay bulshada rayidka iyo mas'uuliyiin kale. Waxaa shirkaasi gudoominayay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanya oo furay shirkaasi ayaa ugu horeynba uga mahad celiyay dalalka iyo hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhinaca kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka. Waxaanu ka warramay madaxweynaha Soomaaliland isbeddelka ganacsi iyo dhaqaale ee xukuumaddiisu ay dalka ka hirgelisay iyo sida ay markasta u soo dhaweynayso garab istaaga beesha caalamku uu u muujiyo markasta Somaliland. We are very happy with the progress we have made through the high-level coordination forum process in the past, and we hope this year will provide us with an opportunity to make further progress. On behalf of the Somaliland government and people, I would like to express our heartfelt gratitude to the development partners for their generous assistance to Somaliland over the years. The support you provide has brought about a transformational improvement in the quality of life of Somaliland's citizens and has been an essential ingredient for Somaliland's social and economic well-being. madaxweynaha Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay farqiga weyn ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaanu carabka ku dhuftay in Soomaaliland ay tahay qaran jira oo ka madax bannaan Soomaaliya. Waxaanu daboolka ka qaaday madaxweynaha Soomaaliland mar kale in Soomaaliland haba yaraatee aanay qayb ka ahayn doorashooyinka ka dhacaya dalka Soomaaliya iyo waxyaabaha kale ee hoos yimaada. I also wish to say a few words about our relations with Somalia. We want to see a stable and peaceful Somalia, but we do not believe that Somalia's integration into Somalia is required in order for that stability and peace to be achieved. Somaliland is willing to play a role in promoting a solution, but it must be a solution built on consent and which takes into account the realities on the ground. The Republic of Somaliland has charted a separate course from Somalia and built its own democratic state. It's not part of any federal Somali state and will not participate in Somalia's elections. The people of Somaliland chose the path of independence 25 years ago, and we will not turn back. To do so would be to erase all of our hard-won successes to date and deny our political reality. mudane Axmed Maxamed Silanya madaxweynaha Soomaaliland oo hadalkiisa sii watay ayaa isdul taagay waxyaabaha muhiimka ee sanadka Soomaaliland u soo kordha. Waxaanu sheegay inay ka mid yihiin ilaalinta dimuqraadiyadda, doorashooyinka xorta, ilaalinta shuruucda kala duwan ee dalka u taala, xaq dhawridda iyo tixgelinta xuquuqda aadamaha. Waxaanu tilmaamay in Soomaaliland ay tahay qaran madax bannaan oo madaxbannaanidiisa kala soo noqday Soomaaliya sanadkii 1918 May. muddada intaasi leegna ay samaysay Soomaaliland horumar baaxad leh oo la taaban karo. The Somaliland inherited was one that had been ravaged by conflict and military subjugations. Yet Somalilanders have overcome this tremendous adversity to create a stable and enduring peace by means of a locally driven bottom-up approach, built a democracy in which power changes hands peacefully in elections, which are monitored internationally, and put in place a system of governance which upholds the rule of law, respects human rights, and provides services to its people. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay oo kale mashaariicaha horumarneed ee laga unki doono marsada caalamiga ee Barbara iyo xiriirka wada shaqeyneed ee horumarneed ay ku soo kordhin doonto wadamada la dariska. Isagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa uu madaxweynuhu on Barbara Development Port and the Addis Ababa Road Corridor. A growing economy can not only strengthen existing state and peace-building processes, support public service delivery,
and legitimate public institutions, but most crucially, it can tackle the ongoing crisis of youth unemployment. waxa uu ka hadlay oo kale madaxweynaha Soomaaliland qorshaha dhow ee Soomaaliland iyo ka fog ee lagu gorfeynayo shirkana waxaan u iftiimiyay faa'iidada ku jirta barnaamijka horumarneed ee Soomaaliland ee furaha u ah shaqo abuurka dhalinyarada. And I'm very happy to see the progress made towards the new National Development Plan 2017-2021 and Somaliland Vision 2030, which will serve as a strategic framework for development partners to align with identified priority areas of Somaliland's development. wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyay madaxda kala duwan ee shirkaasi ka qayb gashay waxaanu sheegay faa'iidada muhiimka ee shirkan uu u leeyahay Soomaaliland. High level aid coordination forum. I also would like to thank to the co-chairs who came here from Nairobi despite of their demanded schedule. Without further ado, I would like to introduce the President of the Republic of Somaliland, and also I would like to give him a special thanks because of his time to be here and at this critical time of his schedule. Mr. President. masabitali kale oo ah ku-xigeenka wakiilka gaarka ee suduwada howlaha bini'aadanimo ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday shirkan sagaalaad ee suduwada mucaawinooyinka Soomaaliland waxaanu si hufan uga hadlay sida ay qaramada midoobay ay ula shaqayso Soomaaliland iyo kaalmaha muhiimka ee ay ka geysato. It's also required considerable involvement and leadership from the government to minimize damage at a time when such leadership is also required to ensure all preparations are in place for timely, free and fair presidential and parliamentary elections in 2017. labada maalmood ee shirku socon doono waxa lagu gorfayn doonaa habsami socodka howlaha horumarneed ee qaranka Soomaaliland diyaar garowga doorashooyinka soo socda ee dhici doona bisha Maarch 2017 hadii Allaha wada loo ogolaado qiimeynta aafooyinka abaaruhu ay geysteen iyo siyaanbaqaadka qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliland ee 5 sano ee soo socda. Ahmed Saki Dair Hassan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland hotelka Ambassador ee magaalada Hargeysa.